markii ay salaada fajr si wanaagsan u gutaan ayaa ay caddaanaysaa inay markaa dad yihiin diintoodii iyo salaadii iyo ballantii ilaahay subxaanahu wa tacaala ina galeen ilaaliyey waxaa lanooga baahan yahay malayaal marka waxaa nolosheenna ku jirto inaynu ilaashano taasoo ah salaad dad badani salaada subax way dayaceen masaajidadii u dhow ayaa laga yaabaa inay tegin taasuna waa ayaandar ninka iyo xaaskiisu waxaa laga yaabaa inaanay waxba ka danayn oo xaasku waxba ayaan ka danayn arrimo kaleeto hadduu la soo daahi lahaa waxaa laga yaabaa ninka inay ku boodi lahayd ama ku qaylin lahayd laakiin salaaddii hadduu ka seexdo wax dhiba aanay agteeda ka lahayn taasuna sax maaha nin aan tukanaynin guriga u jiifo ma aha nin aan salaaddii aadi haynin inuu sariirta u hurdo maaha qalad way gabadha muslimaadka ah sidaas nebigu calayhi salaatu wasalaam salaatuleylka ayuu ugu duceeyey oo yidhi raxima allaahu ilaahay u naxariisto nin habeenkii kacay oo tukaday gabadhiisii xaaskiisii yani kiciye hadday kici weydo biyo wajiga kaga sayray ilaahay u naxariisto gabadha inta kacday tukatay oo salaaddii tukatay salaatuleylkii oo ninkeedii soo kicisay hadduu sariirta iyo hurdada isku dhajiyo ama kici waayana biyo wajiga kaga sayray oo kicisay markaas waxay ka maraysaa salaada nin saalixiintii hore ka mid ahaa wuxuu yidhi xaaskayga habeenkii bay salaadda u kici jirtay marka anigoo khuurinaayo harraati intay igu dhifataayo waxay tiraa war ka kac ilaa goormaad khuurinaysaa qabriga khuuro dheer baa kuu taal maaratay meesha ka kac ilaahay subxaanahu wa tacaala gabdhahanna gabdho saalixaad ahoo nimankooda ugu kaalmaya allah ka dhigo ragguna wax looga baahan inay ku dadaalaan inay salaada waqtigeeda ay ku gutaan salaada fajrna walaalayaal lagu dadaalo carruurtana lagu qabobiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala tawfiiqna أنت